markale garaaso maanta waxaan u balansan Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ku takhasusay dhakhtarka qalinka maanta waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano sida loo sameeyo qalinka noo soo dhaweeya soo dhawo barnaamijkeena waxaan rabaa inaan noo sheegtid qofka aad tahay iyo shaqada aad qabatid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله magacaygu waa Dr. Cawaale Cabdullaahi waxaan ahay dhakhtar qaliin xogayaha ururka dhaqaatiirta qaliinka Soomaaliyeed urur jiro oo dhaqaatiirta qaliinka leeyihiin urur dhaqaatiirta guud jiro iyo urur dhaqaatiirta qaliinka xogayan ka ahay waxaan isku keenay dhaqaatiirtaas qaliinka ee ka shaqeysa Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaan ka shaqeeyaa isbitaal Dr. Sumayd oo jaamacadda Simada leedahay waxaan sameeyaa qaliinka guud iyo qaliinka caloosha ama ubucda ma noo sharxi kartaa qaabka loo sameeyo qaliinka qaliin marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa waa in xubin ama jirka qayb ka mid ah in ayadoo la isticmaalayo ama sida afka Soomaali waxa lagu yiraahdaa midi ama ayadoo la isticmaalayo waxa la yiraahdaa laser ama ayadoo la isticmaalayo waxa la yiraahdo iyadoo ujeedka ay tahay daawo daawada sala socotid marna waa kiniin qofka la siiyo mar maskaxiyan ahaan loo daaweeyaa marna waa qaliin tusaale hadii qofka buro ku taalo daawo waxba ka tarimayso hadii lala hadlo la yiraahdo buradan waxba ma aha waa ku taalaaba wixii meeshu way kuusan tahay soo marka xal saddexaad jiro oo annaga u naqaano qaliin Soomaalida qaliin u taqaano afka qalaadna waxa loo yaqaanaa surgery ama operation maxaa kugu dhiirigeliya inaad shaqada maalin walba aad wadatid shaqadan waxay igu dhiirigeliyay waaga yaraa inta adinka marka idin leeka waxaan jeclaa inaan noqdo dhakhtar ilaaha daawada bixiisa la socotiin laakiin haddana waxaa mar walba farxad gelinayso qof miskiin ah ama dhiig baxayo ama xanuun ku dhagan yahay ilaaha ka qaado laakiin aniga inaan u noqon sabab tusaale kale hadii qofka boga laga hayo kale inaan inta daawo qoro daawadeedu ku caafimaad bari soo laabto doctor waa caafimaad waxba farxad geliyo kamid waxa kale aad ii farxad gelin jiray markii qof aa buro ku taalo oo buradii foolxuma waa aragtay qofka marka wajiga buro ku wax kuusan ku yaalan dhagta wax kuusan ka soo baxan naaska gabadha bararsan tahay xameeti dhagax ku jiro kaadi heesta dhagax ku jiro qanjirka qofka kaadi karin laakiin bari markii aan qaliin sameeyo buradii meesha ka baxday dhagax dhibay kaadida dhibaysa ka baxday qofkii haweenka ahayd waxna cuni karin xameetida markaan ka saarnay qofka caadi uu noqday uu dhahay bogga xanuunku waa daay taasa marka waxay ahayd waxyaabaha mar walba farxad gelinaysa inaan shaqadan caafimaadka waqti badan geliyo barto markaan dugsi hoose dhexe sare markaan dhameeyay jaamacadan tagay caafimaadaan bartay kadib takhasus haddana sii aaday kadib haddana tababar kale sii aaday okay maalin walba qalab cusub ma soo gadinaysa qalab oo alaabta loo nadiifinayo inta badan isbitaalka sala socotid waxa waaye wuxuu diyaarsan yahay qaybo badan qaybteena qaliinka oo kale waxa jira mashiin qalabka nadiifiya mar walba qaliimada la sameynayana hadee sidii nolosha kale waay wax casri la yiraahdo imaanay shala hadii qaliin dilaac la sameynayay maanta waxa la maraa wax la yiraahdo laser waxa jiro wax la dhaho robotic ina maqashaan lagaba AI waxa waa artificial intelligence oo laga la ogsoon yahay in 2040 ama 50 ma naqaano adiga waa gaaraysiin laakiin ani soo xilligaas waxa la filayaa in adduunka isbedelo oo qalabyo casri yimaadaan waxa kale laga fikirayaa in oo adduunka qaliin laga sameeyo qof niyo waa magaalo Mareykanka ku taalo inuu inta qaliin ka sameeyo soo marka maalin walba meel la jooga hadda anaga waxaan sameynaa biraha qaliinka wala nadiifiyaa hadii bir naga halawdo kale suuqan ka soo gadanaa marka qaarkoodna dibadda u dirsanaa qaliimada ay Soomaalidu u baxsheen laser laakiin sida saxda la dhaho qaliinka jeexdinta yar qalabya ka halaabo marka qaarkoodna magaalada ka helnaa marka qaarna dibadda u dirsanaa wadamada inta badan alaabta aan ka soo gadano waxa ku horeeya waa India iyo China waa labada dawlad dunida ugu dadka badan Imaaraadka maadaama Soomaalida xiriir badan leeyihiin ayagana waa ka helnaa sidaasaan inta badan iyo qalabka oo nadaafada wiilala ku qoran gabdhana way joogaan
soo gabdha ay caawinta badan qalinka markaan galayo qaybteena saalada wiila ka mas-uula laakiin gabdhahana waa joogaan soo ayagaa marka inta badan shaqadooda ay tahay aniga bukaanka waa lii diyaariyaa sida hadduu labisan oo kale aan ku imaanayaa dharaa yaallo oo qalinka dharkaasaan gashanaya kadib hooshtaasaan okay laserka iyo mindida qalimada badan yaa loo isticmaalaa qalinka mar walba waxay ku xirantaa nooca ay tahay laakiin sida haddaa aan iri maalinba dunida meelay maraysaa 1900 qofkaan ma gaarin ma joogin waxaa la samey jiray qalinka jeexdinta ama midida caadiga wax loo sameeyo adiga uun midi waxaan u dhahay waa sharp object ama wax oo sidii af leh oo wax jarahaya ilaa aan dhaho 1987 qof dhasha meeshaan ma joogo ani waa jooga laakiin marka kaasaa la isticmaala laakiin wixii ka dambeeyey waxaa bilowda qalinka jeexdinta yar qalinkaas jeexdinta yar wuxuu sameynayaa waxaa la isticmaalayaa duleela yaraa la sameynayaa kaamirada hadda arkaysid oo na duubayso aa la isticmaalayaa caloosha gudaheeda la fiirinaa mar maskaxda lagu fiiraa mar sanbabka mar wadnaha waa hadda meesha la marayo dunida biri laakiin mid kasii duwanaa la gaari doonaa oo kasii casirsan soo mar walba maanta meesha la joogo lama joogo beri waa lasii hormarayaa waata hadda ku dhahaya waxaa suurtagala in artificial intelligence oo la raba in loo isticmaalo waardiye iyo camera inuu duubo beri inay dhacdo inuu asla qalin way fahmaysaa inuu qalin sameeyo artificial intelligence soo dhow tore qaliimo badan oo xiiso lahaa jiro midkee kuugu xiisaha badnaa aad gashaday xiisaha marka la fasirayo noocyo badan ay noqonaya waxaan ku farxay haddaad ula jeedid waa jireen wax aan ku dhibtoodan hadday jiraan way jiraan shaqo kastoo la qabanayo farxad iyo waxay leedahay iyo murug mar walbo annaga waxaa aada ugu farxnaa bukaanka qalinka loo sameeyey ama aan daaweynay asoo caafimaad qabin magaaladii ku salaama ama anoo wada maraayo aan wadada inaan mara aada u jeclaha wala baawur aan isticmaalo laakiin farxad badan ay gelinaysaa markii anoo wadada socdo toore see tahay qalinka oo xiisaha badan waxaa ka mid a markaan sameynayno kale qalimada burooyinka oo kale waaweyn oo kale markaan bixinayno isan xididka agdhoweyn oo kale qalimada xameetida oo kale marka dhagax ku jiraan oo kale oo aan saarayn oo kale oo qofkii soo jeexdin yar leeyahay haddee gabdhaheena soomaalida iyo raggeena inta badan caloosha kama xarugaa laakiin dadka yurub iyo maraykanka joogo calooshooda waa la arkaa calooshooda markaa dha waxaan ujeedaa dhaxdana oo la jeedaa soo marka dadka inta badan maalmahan dambe waxay naceen dilaaci weynaa la samey jiray oo haar wax la yidhaahda ama iskaar afka qaada ay ku yidhahdaan inay ka muuqatay ay necab yihiin soo marka inuu qof intuu yimaad yiro doctor qalin mabaad igu sameynin buradin waa iga saartay taasaa igu farxad badan maxaa igu murugo badan qalin waxaa jiray oo 12 saac ku jiray subaxii waxaan galay 1 saac saa u taqaanin ama 7 am 7 subaxnimo ala saydi markaad iskuulka aadaysaan waxaan ka baxay 2 saac oo habeenimo ama 8 fiidnimo xilliga duhurkii oo kale cabitaan yar la keenay casirka marka la gaaray shaah yar la keenay laakiin dhaqaatiir badan aan ku galeynay dalkana ma ahayn dibadda ahaa qalin wadna la furayo ahaa 12 aad markaan 2 saac ka baxnay qolkaygan tagana siina yar sababta markaad cabaar taagnaatay lugaha ku gororaya sabab taqaani soo dhaqaatiirta inta badan qalinkan dhibka ugu badan oo qabsada waxaa kamid ah dhabarkana waa xanuunaa lugahana waa goraa sababta waxaa keenayso istaaga badan aa keenayso soo marka waxaa dhacday in markaan dhammaynay qolkii tagay fadhiga in haddana la yiri bukaanku waa dhiig baxaya waxay ka mid tahay marka waxyaabaha na walwal geliyo waxaan necabnahay dhiigga inkastoo dadkana dhahan dhiigga waa ku qubaysatiin qubays waa fahmaysaa oo maalin baa dhiig aragtay laakiin waa necabnahay bukaankii oo dhiig baxayo maaha inaan ku farxayo waa naxaya laakiin waxaan jecelahay inaan dhiigga xididkaas dhiig baxaya qabto bukaanka waxaa jecelnaha soo farxad leh oo aan dhib badan qabin inuu ka baxo meesha annagoo xididadiisa ilaalinay oo xubnihii jirkiisa shaqeynayaan nervo uusan noqon nervo waxaan ka wadaa jiis oo kale inaan ka dhigin asoo lugihiisa caafimaad qabo jirkiisa caafimaad qabo uu gurigiisa ma jira maxaa ku dhiirigelineed dadka oo qalimada si qalda u fahmayaan soomaalida inta badan ma jeclo ereyga markay qaliin maqlaan ani dhakhtar qalina isbitaalkayga markaan joogo markaan dhaho qofka caloosha laga qalayaa xameetiya laga bixinayaa qabsinaa jiro buradan meel xunay ku taala ama jirkay ku taala lugtaada ma shaqeynayso oo xididada waa joogsaday lugtaadii waa infection ama kankara gaaray marka ereyadaas yiraahno way dadku way dhibsaa weli markaan yiraahno daawo ma leedahay ku dhahay qaliin ma rabaan
soo marka dhiirigelinta waxay tahay dadka in wacyigelin loo sameeyo wacyigelinta waxaa ka mid a in la wacyigin la yidhaahdo qalliinka wuxuu ka mid yahay daawo soo daawada hadda marka kiniin qof qaato wuu ku caafimaadaya ilaaha baxsha caafimaadka laakiin waa inuu qofka niyadda ku hayaa in uu maxaa la yidhahdaa caafimaadka soo marka qalliinkana waa sabab kale uu qofka uu ku caafimaadayo soo marka wacyigelin ay u baahan tahay dadka la wacyigeliyo ilmaha yaryar loo sheega dhalinyarada dadka waaweyn waalidiinta dhibka ugu badan kala kulanaa waalidiintana loo sheega la yidhaahdo qalliin haddii qofka lagu yidhaahdo ma aha qofka inuu dhimanayo soomaalida waxaa u sawiranta dhimasho iyo dhiigbax ayaa u sawirmayso okay maxaa sababa inaad noqotid dhakhtarka qaliinka haddaa ula jeedid dhakhtar qalliin inaan noqdo dalkayga dalka soomaaliya ana xilliga aan jaamacadda ka baxay xilliga dagaalada fooriyaaye inaan dadka waaweyn hooyooyinkii waalidkii waa yaqaanaan xilligaasaan jaamacadda ka baxay 2007 soo marka waddanka waxaa ka jirta dhibaato xoog leh qaraxyaa dhacaaye dadka qaarkood dhiigbaxa ka dhacaaye bakaara inaa maqasheen laga yaabaa hoobiyaala lagu soo juuraaye waxbaa ka jira dagaalaa jiray soo dalkeena dal sokeeye maadaama uu yahay taas ay igu dhiirigelisay inaan dhakhtar qalliin noqdo inaan dadka caawiyo in qofka dhiigbaxaya aan anoo isticmaalayo aqoontayda khibradayda ilaaha daawada bixina laakiin inaan ku caawiyo dad badanna way caawisay aniga meesha aan qalliin kasoo bilaabo isbitaalkiisana la dhaho inaan maqasheena laga yaabaa wuxuu ku yaalaa kaaraan marka la dhacfo kaasaan kasoo shaqaynay soo dad badanoo soo dhaawacmay aan ii keeni jiray alxamdulillah ilaaha badbaadi jiray qaarkood ayagoo lugaha ka go-ay qaarkood ayagoo madax dhaawac ka ah qaarkood ayagoo ogaan laheen waxabaas okay wadamaas ma kusoo takhasusta wadamaas ma kusoo bartay aniga banaanka wax kusoo bartay dalkan kusoo laabtay jaanis badan aan heli karay inaan dibadda ka shaqeeyo laakiin alxamdulillah haddaa mar walba ku kalsoon tahay naftaada dalkaaga wixii aad banaanka ila baahinaysaa lacagta hadda banaanka la ii ballan qaaday in ku laba jibaaran ayaa ka helaha waana ku farxsan gabdho adinka idinla mida iyo wiilal adinka idinla mida ay joogaan idinka waaweyn barko haddii aan rab lahaa adaa oo kale naa noqda maxay ugu dhiirigelin lahayd waxaan kugu dhiirigelin lahaa kow inaad jeclaatid maadada oo markaad dugsi gaartid oo kale sayniska maadada number 1 numberka labaad maado waxaa jirta loo biology chemistry sayniska inaad jeclaatid numberka saddexaad inaad samaysid goobaha caafimaadka oo kale haddii waqti aad heli kartid oo kale inaad booqatid oo kale haddii qaraabadaada ay jiraan oo kale qof caafimaad barta ama dhakhtarnimo ama kalkaaliynimo inaad marka qaarkood ka cusutid xilliyada fasax oo kale ah laakiin mar walba taxadarkaaga qab haddaa isbitaal tagtid meelaha ku boodboodina gacmihiin mar walba xirta galoofiska waxaasoo dhanna waxaa ka muhiimsan haddii aad maalmahan dambe tiknolojiyada adduunka horumaray caafimaadka adoo gurigaaga jooga ayaad baran kartaa soo youtube-ka oo kale facebook oo kale barnaamijyo badan oo caafimaad looga hadlaa jiro barnaamijyadaasoo kale daawanaysaa wax badan ee marka maskaxdaada iyo dhisaysaa waana hubaa inaad iga fiicnaanaysaa mustaqbalka sababta wax kalena maa dhalinyaraad tihiin waa soo koraysaan biri markaad da-deeda kale soo gaartaan adduunka meeshii lama joogaayo wax ka badan inta aan soo qabtay in ka badan aad qaban kartaa ma jiraa qalabyo ah xiiseyso markaa qaliinka ku jirto ها قلبيدا oo aan aad ku jeclaa waxa kamid oo kale qalabyada dhiigga lagu joojiyo kale waxyaabaha aad u jeclaa kale waxa kamid ah Soomaalida suufi u yaqaanaan laakiin gowsaan dhahnaa waxyaabaha aan jecelnahay kamid tahay haddii su-aasha tahay maxaa jeclaan lahayd qalabyada jeclaan lahayd waxaan jeclaan lahaa anoo qolkan ku jira qolka kale inuu bukaanka jiifo anigana aan inta qaliinka sameeyo waxaa la dhahaa noocaas robotic surgery dalkeena ma jiro wadamada dariska lagama helo hadda ay weydiisaan Africa oo dhan laguma sameeyo waxa hadda qalimaas lagu sameeyaa wadamada la yiraahdo Korea ina maqasheena laga yaabaa Australia qofkii ma tagay maya Australia waa qaarad kale waaye soo wadamadaas hadda lagu sameeyaa Mareykanka iyo Jarmalka iyo wadamadan Yurub ayagana waa lagu sameeyaa marka waa robotic surgery waa qofka dhakhtarka qaliinka intuu ku jira qalabkii oo mashiinka ahayn intuu ku jira macallin bukaanka qolkan ku jiraan wuxuu ku fiican yahay burooyinka marka la jaraa xididada dhiig joojinta iyo qofkii oo aan dhaawac weyn loo geysanin robot-ka ku shaqeynaya buu sida robot-ka magaca wuxuu u dhigmayaa sida robot-ka camal waay laakiin uu ka yara duwan yahay robot-ka marka lagu dhahayo mid yar oo sida nin camal ama wuxuu rabaa hada qof bini'aadam u samaysan oo albaabka ku taagan waay
kan laakiin wuu ka duwan yahay mashiin dhaqaaqayo waaye sawiree ku fiicnaa leh laakiin insha allah waa idin tusaaya marka ka baxo gacmo uu leeyahay soo gacmahaasaa caloosha la gelinaya ama maskaxda la gelinaya ama feeraha la gelinaya soo marka ayagaa marka cadka soo jaraayo dhiigga bixinayo haddii wax la gelinayo jirkaas ayagaa gelinaya goorma ogaatay inay xirfadan ku fiican tahay markaa yareed ma ogaatay mise markaa weynaatay xirfadda inaan ku fiicanahay markaan jaamacadda dhammeeyey you know waxaa jirta hal arrin qofka wuxuu jeclaanayaa marka uu jaamacadda mar walbo aad meel dhiganaysid waxbaad jeclaanaya waxyaabaha kow aad jeclay waxaa kamid macalinka soo labisan oo kale marka qaarkood jeclaanaysaa qaabka maadada uu dhigaad jeclaanaysaa soo markaan macalimiinteeda mid kamid oo maadada qaliinka i baraayay qaabka dhaqankiisa iyo waana marka la dhahayo macalinka waa qofka ku haga anaga inuu wax fiican uu hadda mustaqbal noqdo soo taa keenta marka inaan aad usii barta maadada qaliinka kadibna maxaa la yidhaahdaa markii dagaalada dhaceen anoo u haayo maxaa la yidhahdaa appetite ama waxa la yidhaahda rabitaan oo joogta anoo u haayo ayaan maxaa la yidhahdaa qaliinka sii bartay waana markii aan galane raggii aan la shaqeynayo iyo senior allaha marwalba qofka kaa weyn oo isbitaalka aad ka shaqeynaysa ama meel walba ha noqoto qofka kaaga horey waa inaad ku ixtiraamtaa waxna ka barataa taana marka waxay kuu fududaynaysaa hadhowta inaad hawshoodii dhan aa qabatid berina ku jeclaadaan soo marka xilligii aan traininka ku jira ayaan ogaaday inaan ku fiicanahay saaxiibada aan la shaqeynayo iyo ragga iga waaweynna ay igu dhiiragelinayaan ma jira qaliin waqti badan oo kugu qaatay ha hadday qaliinaan ka sheekeynayo jiro oo subaxii 1 saacaan galay waxaan ka baxay 2 saac meeqa saacad u dhaxaysa waxay noqonayaan marka 7 waa 12 adiga 13 saacaan taagnayn soo marka waa qiyaas kartaa 13 saac bini aadana tahay si sharciga waxaa naloo ogol yahay inaan taagnaano 3 to 5 hour laakiin waxaa dhahnaa caafimaadka dadka barta aad u yaqaan markaad caafimaad noqotaan arki doontiin waxaa jirta jirkeena wuxuu soo daynaya hormoon dheecaanadaasoo inta mararka qaarkood qofka inuu dulqaat markii ilaahay dhib ma keeno ama libaaxa inta kasoo baxay ama qaraxa dhacay maxaa ka fekeray inaad baxsatid soo maha soo orod waxaa imaanaya weliga aadan ordin ama haddii lagu yidhaahdo meeshaana dad soo socdaan oo dad dhibaateyna marka aragti waad carinaysaa waxaa laga yaabaa inaad orodid 20 30 40 laakiin marka caadiga tahay oo aadan cabsanayn inaadan ordin soo jirkeena ilaahay wuxuu ugu talagalay xikmad uu ilaahay u sameeyaa jirto oo isku balance oo isku dheelitiraayo oo muhiimadana ay tahay in haddii dhib yimaado uu jirka difaaco marka taa marka maxay keentay inaan u dulqaato 11 saac ama 12 ama 13 saac aan taagnaado hal qalliin ujeedkeenana ay ahayd inaan ama wadnahaas iyo ka shaqayntiisa ka shaqeeyo bukaanka soo xanuun u dareemin maxaa siisay marka qalliinka ku sameynaysin waxaa jirto shaqada caafimaadka ama qalliinka kale waxaan yiraahnaa waa kooxa wada shaqeyso hadda waxaa laga yaabaa marka lagu dhaho bura la baxshay cawaala ku soo warmaa doctor cawaala inuu buraas bixiyo laakiin cawaala kaliya shaqaas ma qaban ani waxaa ila shaqeeya dhakhtar suuxiye anesthesia dhahan afka qalaad anesthetist waxaa ila shaqeeya caawiye oo nursing ah walibana barto qaliinka iyo qaabka uu caawinayo waxaa jira marka qaarkood dhakhtar aniga ila mida laakiin iga darajo hooseeya oo qaliinka ila caawinayo waxaa jira qof biraha qaliinka diyaariya iyo markaan banaanka wax uga baahna soo saaladaas qaliinka ama qolkaas qaliinka waxaa ku jirta 5 qofood laakiin guusha hal qofay inta badan laha dhakhtarka qaliinka qabtay laakiin waa shaqo waa aragta kooxda banooniga marka la ciyaarayo kooxaha waaweyn meeqa garoonka lagu galaa banooniga taqaan 11 qofood soo 11 qofood hal qof waa gool ka dhaliya laakiin haddii kooxda ay guuleysato kulawada guuleysta soo marka taasaa keenayso marka in ay noqoto marka shaqada la qabanayo kooxdaas oo dhan isla wada socoto marka dhakhtarka suuxiyahana inta badan muhiim noo ah oo qofka noo sheegaya in la suuxin karo inuu qofkan qalliin gali karo haddii qofka wadnaha laga hayo dadka waaweyn oo kale inta badan wuxuu dhahaa ma geli karaan haddaysan emergency waxaa la dhahaa degdeg haddaysan ahayn marmar waxaa jirta qofkii oo dhiig baxaya 90 jir yahay waa qalina loo sameynaa laakiin hadduu 90 jir yahay dhagax xameetu ugu jirta ama 90 jir yahay lug yar bur yar ugu taalo qalin muu baahna haddii aad dhahdo waa qalayaa suuxdinta aad dhibaato u geysanayso qofkiina waa dhimanaa shaqadeena caafimaadka maxaa ka mid ah ilaaha badbaado baxsho inuu qofkaas miskiinkaa badbaado uusan gacanteena ama shaqada la qabanayo usan ku dhimanin maxaa ku samaysaan ilmaha ka cabsanaya qaliinka ilmaha ka cabsanayo
anoo kale waxaan isku dayaa inaan saaxiib la noqdo walow ay mararka qaarkood ay qofka ay yaqaanaan ay mar walba muhiimta ama waalidkoo kale waxaan ka codsadaa inuu waalidku soo galo dhakhtarka suuxiyaha oo saaxiibka ila shaqeynaya waxaan ka codsanaa inay daawo yaro hurdisiin ah mararka qaarkood ilmaha waxay dhibsadaan cirbada la duraayo soo marka cirbadaas la duraayo waa loo sheekeeyaa mararka qaarkood daawo yara afka looga shubaa mararka qaarkood bahal yar oo sanka oo ku neefsaa la dhahaa soo taasaa marka ka caawinayso marka cunuga ama ilmaha yaryar uu ogaalka markaasi ay daawada suuxdinta qaato kadib ama kanolihi iyo qalliinkii markaas kadib aan sameyno cunug yaro ooynaya qalliin uma sameyno haddaan sameyno anoo kale ani aabbaan ahay ma jecli cunug yar oynayo inaan u adeego soo cunugii oo waxaan culays badan lahayn markaasi daawadii qaatay xanuun aan dareemeyn markuu soo baxo uusan asoona dhib qabin oo meesha ka yimaado okay caruurta oo xanuun ku dhaca waxay la mid yihiin sida dadka oo waaweyn oo kale la mid yihiin wadan xanuunka noocyo badan oo karaa jirooyin wadnaha ku dhacaa jiro ilmaha oo ay qaarkood ku dhashaan wadna garaaca ku imaan karo dhiig la-aana ku dhici karto sida hooyooyinka uurka loo kale soo waxyaabo badana ilmahana ku dhici karo wadna xanuunka marka waxyaabo badanaana keeni karo inta badan dadkay ku imaadaan cudurkay ka cabanayaan inta badan qalliinka guudaa laygu imaadaa subax kasta markaan isbitaalka tago waxaa ii imaada dad baabasiir inaa maqasheena laga yaabaa dadka waaweyn ku dhacaa ilmaha yar ku dhacaa waxaa kaloo ii imaada dadka xamiitay dhagaxaanta ugu jirto kaadi haysta daday dhagaxaan ugu jirto waxaa kaloo ii imaada dadka burooyinka jirka maskaxdooda ku jiraan hooyooyinka naaska burooyinka uga soo baxaan oo kale waa ii imaadaan waxaa kaloo ii imaada dadka oo sokorta ku dhacdo oo nabarada lugaha ugu yaalaan qaarkood lugta intay dhimato in oo qalliin loo sameeyo ama goysma ama jarmo loo sameeyo lugta ma la jaraa waa la jaraa haddii ay lugta madoobaato qofka si loo badbaadiya haddii lugta ayadoo sii madoobaato ay iska sii madoobaato qofka intuu dhimo lahaa iyo inuu lugta la jaro ayaa lasbarbar dhigaa haddii aan la jarin qofka waa dhimanaa sababtoo infectionkaa sii badanaya haddii la jaro infectionkaa joogsanaya qofkina waa noolaanaa laakiin asoo lug la oo joogo yaa fiican marka qofka asoo lugta in laga jaray uu noolaado iyo inuu dhinto yaa fiican inuu noolaado marka taas waa anaga shaqadeena caafimaadka waxay tahay badbaada ilaha iskale inuu qofka badbaada taasaa muhiima dadka naqaska ku dhagan yaho kale tubooyina feeraha gelinaa soo marka shaqadeena shaqo guud waaye dadka dhaawacyada xabadaha shilalka bajaajka waad aragteen aan u malaynaya waxyaabahaas oo dhan dadka guryaha ku dagaalamo kale oo tooriyada isku qaato waxyaabahaas oo dhan daaweyn ma adaa dooratay inay noqotay mise waalidkaa koo dooreen anigaa doortay sanadkee ee bilaabtay inaad dhaktar noqotid daadidaa rabtaa ma ina ogaad 2006 bilaawday aan inaad dhakhtar toosoo noqday wixii intaas ka dambe kulligiin wax dhashay idinkuma jiro soo ilaa xilligaas ilaa maantadan shaqo isbitaal bukaan aan ku dhex jira ma jira qalliin degdeg habeen rax meela simaado qalliin degdeg oo dharkiisa oo asoobada qalliinka lagu geliyay habeeno badan habeeno badan weliba waxaa dhacday bishaan marar badan ay dhacday in saq dhexe salaada xilli hore gelin dambe casir haddadaan ay jeedin shaqaan u socdaa mar laad aadaya waa ka imaaday haddana waa idin imaaday hadda markaan tagay kees qalliina i yaalo soo marka mar walba waa sida hadda qof xanuunsan oo gaas hayo ayaa mar walbana waxaa u dhacaysaa qof dhaawac soo noqday bajaajka waa aragteen magaalada dhalinyarada waa aragteen si mootada u wadaan soo mar walba marka waa filan kartaa ilaahay ummadda ha badbaasho in uu shil dhaco taasaana keenayso qof xilligan ku imaade oo wax u qabo waxaad la sheekaysaan qalliin ku soo bisay oo aan la sheekaysanin ma ma xanuunkiisu ku sheemaysan yahay ad qalliin u baahantahay la dhahday cabaar ma la sheekaysan kaas waa cabaar ma la sheekaysan kadib qalliinka soo gashay amay ma dhacdo inta badan waxaan sameynaa qofka markaan ogaano inuu ama dhib jiro ama xameyti dhagax ku jiro ama lugta dhib jiro ama feeraha dhib jiro baaritaanaa la sameeyaa ama raajo ha noqoto ama computer ha noqoto ama maalmaha dambe waxaa yimid wax la dhaho scan kadib baa go-aanka la gaaraa qofka intuu soo baxo hadda inteenaan qofna inta lasoo dhaho saalada gal maya taas waxay noqonaya dembiya noqonay qofna daawo iskagama qori kartid ilaa uu qofka u jiran yahay mooye maxaa ku dhiirigelin lahayd dhalinyarada bajaajiga xoog u wadaayo dhalinyarada inta badan waxaan ku dhiirigelin lahaa inay tartiib u wadaan booliska inay shaqeeyaan oo weliba wadooyinka dadka shuruucda loo sameeyo qaarkood waxay leeyihiin balwadda ay joojiyaan dhalinyarada qaarkood taabuwa maqasheena u maleynaya qaarkooda cunaan
wadooyinka in loo sameeyo calaamadaha jiro aninka hadda inaadan arkin laga yaabo Aragne. oo guduud iyo Jaale iyo cagaar. ayaa jiraan meelo qaarkood laamiga waa la sawiraa waxaa lagu sawiraa wax la dhaho dadka oo socotada ah oo wadada marayo afka qalaad pedestrian lagu dhaca meel loogu talagalay in la baro bajaajleyda iyo kuwa baabuurta wadaba in markii wadadaas meeshaas oo kale ay maraan laamiga inay tartiib u socdaan ama ay ka istaagaan dadka soo marka waxyaabo badan ay u baahan tahay wadada badbaadada wadada waa wax dheer waa wax weyn waaye soo marka kaliya lama saari karo nimankaas dhalinyarada ah laakiin waa in wada kaashada oo booliska ugu horeeyo oo dhalinyarada baabuurta wada ku xigaan oo dowladda la raba inay wadada dayactirto oo calaamadihii lagu wada dhajiyo waxaasoo dhan la wada baahan yahay waa ku mahadsan tahay barnaamijkeena garaasooyintaan uu ku egyahay sidoo kale waa ku mahadsan tahay mar koowaad iyo mar labaadba inta aan soo booqatay waa mahadsantahay adinkaa mudan farxad ay tahay astaan ubad maalin wanaagsan